xaaslay raggii xoolaha lahaa waxoodii ayaga meel baad lagu tiiriyey ragga murugmaalkaana wax uu hadlay oo yidhi raggii aad baan uga xumaa dhalinyartan ku shaqo weyday dabkii ka kacay Hargeysa suuqa Waaheen laakiin waxaan leeyahay in iyagu mudaharaadaan maanta xaq ay leeyihiin maanta ay oran karaan hana la siiyo ma garanayo dadkaas waxay xaq u leeyihiin in meheradihii ay ka shaqeyn jireen 4,000 way ka badan yihiin qaar ka mid ah dhalinyaradii ka shaqeysanaysay suuqa Waaheen ee dhawaan wadabku ka kacay ayaa halkan caawa isugu yimi waxaana fariin halkan uga direen gudida loo xil saaray suuqa Waaheen waxaana ka mid ah hadaladoodii timi caawa halka joogta waxa weeye waa warshadii wax soo saarka suuqa Waaheen ee xoog maalkahayd ee subixii halka uu shaqo tagi jirtay nin walbana waa xaaslay raggii xoolaha lahaa waxoodii ayaga meel baad lagu tiiriyey ragga murugmaalkaana wax uu hadlay oo yidhi raggii inoo shaqaynayay ee saaxiibul ciyaalka ahaa ee kirooyinka ku jiray wax ka hadlay haba yaraatee maanta ma jirto marka waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland maayarka madaxweynaha iyo dhalinyartan waa dhalinyartii ka shaqeyn jirtay meheradii gubatay ee Waaheen Hargeysa waxaana imka ku doodayaan in ayaga la xasuusan dawladda xasuusan shacabka hantida bixinaya ama ugu deeqayo dadkan hantida ku gubatay aan xasuusan sababtu waxay tahay qof shaqaale ah wuxuu yahay shaqaale waxaana xusaya ama xasuusnaanaya qofkii uu shaqeynayay laakiin qofkii uu shaqeynayay hadii maanta aanu waxba hayn oo isagii wax loo ururinayo waxa weeye xaq wuxuu leeyahay qofka loo shaqeynayay hadhowta hadii hantida isugu hagaagto inuu isaguna dadkan xasuusto laakiin wax ka horeysa ma jirto oo maanta lagu xasuusanayo inkastoo aan ka xumahay sida dhalinyarta kale ee hantida ku gubatay iyaga qudhada qasaaraha soo gaaray aan kuwana uga xumahay maadaama ay reero ka biirinayeen caruur ka biirinayeen ay masaarif u ahayd shaqo abuur u ahayd aan ka xumahay haddana waxaan qabaa ra'yigayga waxaan qabaa in ay dadkaas yihiin dad shaqaale ah una shaqeynaya dadkii hantida ka gubatayna in ay hadii ay lacagtii helaan ay xasuusanayaan dadkan ayna shaqaale ka dhigan doonaan sidii ay ugu shaqeynayeen hore ay imkana u shaqeyn doonaan oo dad aad u jilicsan walibana inta caawa halkan isku timi wax weeye waa dadkii shaqaalaha ahaa ee ka shaqeynaya suuqa runtina kolley meherada laga shaqeynay maanta uu gubteen rag la halo diiwaan gelinayo kolley cid wax ka dhigtay maanta waa shaqaalaha bartan taagan iyaga laantana meheradu ma socdeen marka waxa dhacday wax weeyaan in suuqii raggii xaqlayaasha ah inay sameysteen gudiyo wax weeyaan u qaabilsan wax weeyaan wixii hantidoodii soo dhicinaya laakiin tan waxa weeyaan intii meherada ka shaqeynaysay runtii cid u hadashay ma jirto marka waxaan ka codsanaynaa maxayda gudiyada suuqa maayarka caasimada dhamaan gulaha deegaanka cid kastoo arrintan ku shaqo leh in nimankan hoos loo eego waxa jira dad badan oo xaasliyaala waxa weeyaan dhammaan taas oo dhan yoomkii ay qaadanayeen ayaga wax u ahaa kolley intaas qof ku tiirsanaa waxa jira kaliya ta dhammaan dadku fikradda ay qabaan waxa weeye in suuqa gubtay ganacsiga dadka badan ku xidhnaa dadka badan ka shaqeysan jireen in suuqaas uu dib u soo noqdo taas qof kasta oo Soomaaliya uu aaminsan yahay in suuqaas dib u soo noqdo si ay dhalinyarta ka shaqeyn jireen dib ugu soo noqdaan waa la ogaa in suuq weyn oo suuq ganacsi ah ahaa oo dadku ku xidhnaa dad badan ay ka shaqeyn jireen reerahooda ka masruufan jireen balse laakiin hadii la yiraahdo qof kasta oo shaqaale xataa meesha ka shaqeyn jiray inuu lacag helo oo lacag qaaraankan la ururinayo lacag lagu daro lama sameyn karo dadka intii hantida ku gubatay baan xataa hantidoodii la wada siin karin ama loo soo wada calin karin maadaama ay saa tahay waxaan qabaa fikradda ah in dadkan shaqo abuur ka loo sameyn karaa uu yahay in dadkii ay u shaqeyn jireen hantidoodii wixii la soo calin karo lagu saacidi karo ee lagu taageeri karo in lagu taageero si ay shaqaalihii u shaqeyn jireen ay suuqa shaqada ugu soo noqdaan laakiin ma qabo in qof kasta oo meesha ka shaqeyn jiray iyo kii hantidu ka gubatay labadaba wax lagu tari karo waayo waxba lagu tari karo taas weyn hubnaa weyn isla meel ligi karnaa bal aynu ku soconno hadalkooda dhalinyarada waa kuwii codka bixinayay maayarka gudida hawlahan gargaarka wada gudida shaqaalaha iyo xaqlayaashii bacadlaha gudida loo saaray intaba waxa leenahay ilaa hadda cid arintayadii ka hadashay oo ka hadlaysa maanu arag dad meel ku wada nolol ku wada shaqeeyana waanu hayn marka waxaanu leenahay aanu baaq dheer u direynaa maayarka Cabdikariin Axmed Mooge oo 26 cod dhalinyarta ka haya oo halka ku jooga inuu mar kaliya cod u leeyay aanu mar kaliya noogu soo darin inta uu hadlayay oo shaqaalaha bahweynaha 3,000 4,000 way ka badan yihiin waxay haysataa
horta mooge iyo mas-uuliyiinta kale way ka hadleen oo waxay dhahaan suuqan shaqaalo badan baa ku xidhnaa, shaqaalo badan baa ka shaqayn jiray, masaariifta caruurtooda kasoo saari jiray, masaariifta reerahooda kasoo saari jiray. taas waa laga hadlay, laakiin maanta waxtar lagu samayn karo oo lagu tari karo dadkan lagu tari kara horta ma jiro. daawasho wacan.